xalay magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah dalka ka daayay roobab xoogan kuwaas ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada. roobabka oo xalay xilli dambe si xoogan uga bilowday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa ay biyo dhigeen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada iyo xaafadaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. qaar kamid ah wadooyinka caasimadda ayaa roobabkii xalay ku daayay ay sababeen inay hakad galaan socodka dadka iyo gaadiidkaba. sidoo kale waxa ayna biyo ay qaadeen guri ay deganaayeen dad danyar ah oo ka samaysan cooshado. ma jiro khasaare nafeed balse dadkaas danta yar waxaa korkooda ku dhamaaday dhibicda roobka oo ma aysan helin meel ay ka galaan roobkii xalay la saaka daayay. SCN TV ayaa booqday xaafado kamid ah Muqdisho ay ku nool yihiin dad barakacayaal kuwaas oo guryahoodii ay qaadeen biyaha roobka. haddaba waa kuwan qaar kamid ah dadka barakacayaasha ah oo inooga waramaya roobabkii ka daayay caasimadda iyo saameynta ay ku yeelatay. guryaalkeenna biyo buuxa alaabta iyo wax dhan waa naga waxay sameeyeen roobkan kadis leenooga imaaday. walahi siigalan isku joognaa aniga awadiyo di roobna soo kadinay guriga arkna iska aadnay meeshii arkna iska aadnay meeshii arkna dhar isku waxay sameeyeen alaabta 3 jeer 4 jeer mar waa iga daaday. marka wixii oo ma aragto ilmaha ay gacantooda Ilaahay wax soo geliyo gaasay wax noo keenana gaxdayn iyo waxayna aan ku wadnaa maanta aniga tawr ma waa jirnaa jira ay hayso maana waagi horo oo siyaad bare ya hooshayga haastay ana nin fiican oo wanaagsan ah bariid ba tacbay ana markaas tan bariid tacbo ma jiraa aniga waa tawrtiga ay baraka noqotay ya marka waxaan rabnaa dawladayna anina kaalmayso yaahe iyo ninkii walaal oo wax soo dhiibi karo taasa onka aan ku jiifnaa maane wax qabsan karno oo weyn oo qabsan karno ma jirto. hadda habartaana dhaqaaqay shalay biriga waa joogtibo hadda walaal iyo wiil kaalmadooda leen fistooyna maane waxaan onka gacantaayna ku hayno malaha. roobkan biriis feera meelaha ay shaqaalanimo ay iskii kacday ay dhaqo iskii shaqaystaa aniga waabo waxba mu qabo karibo الآن ولو جرنا هو دوي حالي غوري مكبرين انا markii le ama gaxba saartay dhahayo roobkii way soo gali le kursi soo gali gaxbadii muxuu islaamo xal u anfuri dhibaato oo bilgo oo milka oo kasoo mi hayna biya iraacday biya hadda san oo dhax jiro oo jeeda in cara wadiido hay waa ka carada waa arkaysa waa ka in cara qaado hayo oo meehi qoyaanka oo ku shubo hayo mana saan hadalkii la bandhigana waxaan arkay dadaal waa dadaalooyin lak dadaalkiini waxa wax ku dheefo hayo ilaahay dinka cabsan man dadka la wax ku dheefo hayo dibkii unkii ku jirnay wax kuma dheefno waxna caawiye ma jiraan laak marmarkoo dhif aan waxa soo hadda waxaan soo qaadanay anfur aan ku soo qaaday jaqafkan oo cadka oo isku daboolaa aan ku anfur aan ku qaaday waxa iskoolka oo hiddo anfur soo qaadanay in caawiya aan rabnaa gacanta naga qabtaa wixii naga roon yihiin hay'adda iyo macal dawladda Soomaali wax nagu tarto waxaan deganaa u yaraan walaa 5 sano waa deganaa ma aan baan ma sheegay bakiin aan deganay waxaan oo wixii ninkii lahaa sadaqaystay yiri intii adduunyada ka fiicnayso bushkiga dhishta markii soo taban ana ma niyeelay. Noor Cabdiraxmaan, Noor SCN TV, Muqdisho.